بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا سوماليين مال كستو أي joogtaan waxaan leenahay maalin wanaagsan cidii maalin u tahay cidii habeen u tahay waxaan leenahay habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka kaftanka iyo madadaalada oo hadaan oo kale aad kaga barataan kanaalka Talyaani Media Production. maanta runtii waxay ka shidan tahay beertan ay ka shidan tahay runtii waa meel aad runtii u qurux badan oo runtii macnaha aad macnaha u hawo macaan. maanta xogaa qorrax ayaa iska jirto xaafadii xogaa waan ka soo yara tago dalxiis yar oo gaaban ayaa macnaha soo galay. waxaan isdhahay asxaabtaada maadaama ay wax ka sugayaan in asxaabtaada aad la wadaagto oo runtii macnaha hawadan quruxda badan leh aad macnaha la qaadato maadaama idinka halkan aadan joogin, laakiin macnaha waxa waaye inaad macnaha aad aniga ahaan ila qaadataan wax halkan aan kala soo kulmo ay idin soo gudbiyo. runtii meeshaan waa meel runtii aad u hawo macaan maadaama maanta qorrax ay jirto jawiga aad u degan yahay. marka maanta waxaan rabay inaan idinla wadaago xogaa qasiyar oo runtii qof yar saaxiibka ay ku dhacday. qisadaas marka maanta idinla wadaagaya waa runtii waa qiso runtii aad u macaan oo runtii aadna la yaab u ah runtii qaarkiin markaad maqashaan oo runtii aadan aamini karin sidee ku dhacday. waa runtii waa waxyaabo oo aan impossible ahayn oo inta badan aysan dhicin. runtii sheekadaas ayaan maanta idinla wadaagayaa. laakiin intaan idinla wadaagin waxaan leeyahay asxaabta kanaalka ku cusub waxaan leeyahay inaad macnaha subscribe macnaha noo saartaan, like aad saartaan, aadna barnaamijka aad sii share gareysaan si ay u gaarto asxaabtiina. annagana kulley waxay noo tahay dhiirigelin ay noo tahay inaad macnaha subscribe na siisaan, waayo kulama subscribe badan aad na siisaan annagana waxaan soo gelinaynaa inaan video badan aan halkan soo gelino idinkana aad ka faa'iidaan. marka qisada ayaan idin bilaabayaa. qisada waxay ku dhacday yar aan saaxiibanahay runtii aan aad iskugu dhownahay. marka qisadaasna waxay ahayd kulley wadanka ayaa ka dhacday maalmaha kamid ah. kulley wiilka hadda ay kaaga sheekeynaya waxa uu Facebook ka bartay gabar Soomaaliyeed ayuu Facebook ka bartay. gabadhii marka uu ka bartay ilaahay amarkii marka gabadhii aad isku fahmeen. sidaan filayana kulley muddooyinkan dambe wadankii social media aad loo isticmaalaa. saan u maleynayo dunida maanta way yar tahay qofaan macnaha social media aan isticmaal. marka waxa aad loogu badan yahay waa kulley social media. marka Facebook ay iska barteen runtii gabadhii wiilkii aad isku fahmeen. aad markay isku fahmeen runtii aad u sheekaysan jireen. xilliyada waxaa la gaari jiray habeenkii 3 habeenimo inay sheekada ay ku gaarto. taasna waxaad ka dareemi kartaa meesha inuu isfahan weyn uu ka jiro. ilaa markii marka wiilkii marka asigana wuxuu dhiganayay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal wadankii. waana wiil runtii waxbarashada aad ugu dadaali jiray, waxbarashada aad ugu wanaagsan, mustaqbal fiican ka lahaa. marka dambe wiilkii gabadhii zaid isku sii fahmeen. maalin ka sii dambayso jacaylkooda aad u sii ziyaadayay. runtii isaankoodana wuu sii weynaanayay. markii dambe ilaa markii maalmaha kamid ah wiilkii asigoo jaamacad soo aaday. jaamacaddana kulley magaalada centerkeeda ayuu ku dhex taallaa. wiilkiina kulley asigana kulley wuxuu degan yahay magaalada koonaheeda ama geeskeeda ayuu degnaa. marka maalmaha kamid ah marka maadaama jaamacaddii uu soo aaday wuxuu soo raacay BL ayuu soo raacay. BL-kii marka uu soo raacay wiilku wuxuu fadhiyaa adiga qaybta dhexe ayuu fadhiyaa. qaybta uu fadhiyana kulley 3 qof ay ku wada fadhiyeen. qayb kamid ah macnaha way banaaneed. marka qaybtaas markay banaaneed baawarkii ayaa marka BL-kii waxaa soo gashay xabad kala qacsan oo runtii markaas kulley inay aroos u socoto in kale aan u maleynayo sidoo asiga kulley asiga inkastoo uusan ila wadaagin laakiin aan qiyaasay maadaama runtii markaas aad u labisneed make up kala kacsan ee u marsanaa. runtii marka gabadhii marka ay soo gashay kuraasmanka kale way buuxaanoo runtii qof dumarna ma istaagi karto. runtii waa qof dumar ah. marka ilaa markii meeshii ka banaaneed wiilka agtiisa ay soo yara fadhiisay. gabadhina aad u kala kacsaneed. marka dambe wiilkii markii ay soo ag fadhiisatay xogaa cariirina wuu jiray. marka
gabadhii marka waxay ku tiri walaal xoogaa iga yara siko ama iga yara duro ilaa markii wiilkii daacadu iska hamoogta uu ka yara durqay xoogaa isbees fiican heshay laakiin gabadha qofka macnaha gabadha iyada macnaha iga siko maysan ahayn laakiin sheeko kale ayay macnaha ku hoos duugan ma fahamtay ilaa markii marka waxay rabtay ilaan sheeko ku timaada Soomaali dhahda moog ilaan qof moogtahay marka rabtay inaad ku daydid ama inaad la sheekaysatid waa inaad horta wax un aad samaysaa sheekada meel aad ka bilowdo ayay u baahan tahay ilaa markii marka sheekadii marka waxay rabtay gabadhii inay meesha ka bilowdo wiilka xoogaan uu kalkacsanayo xoogaa inay ka yara heshaan kula u yara fahmay marka ilaa markii gabadhii saasna uguma harin oo sheekada way sii wada waxay dhahday wallahi billahi waa xawaay kuleel ma lagu jiraa waxa waa bishaan waa bil kuleel oo haddana gaariga waa la wada buuxa waa kuleel inteen tagnaa waa xoogaa iyadoo macnaha ka yara xun marka ilaan waxay rabtay wiilkii inuu soo yara jawaabo oo macnaha sheekadii saas ay ku bilaabato in la isku yara fahmo wayna dhacday ilaa markii wiilkaas inuu fahmo waa dareemi karnaa kullee waxa waa kuleel iska jiro laakiin dhib ma lahano waxa waa inta gaariga la yara saaran yahay waaye marka dhib ma la iska yara dulqaado walaashay laakiin ilaa markii sheekadii meeshay isku fahmeen way yara sheekaystaan kadib ilaa markii wiilka yara digraba oo dhahay ani jaamacadeeda soo dhow halka markay aragtay dhahday taleefanka iska soo jirtay u dhibtano leen qofta heer magaal waa moogta lama dhihino numbarkaada ii soo baas ma aysan dhihin dhahday qofyo macnaha ku qabay numbarka wiilkii asiga muusan fileen moogta numbarkaana xabadaan ku dhahayso macnaha ii qor muusan isdheyn ilaa markii marka numbarkii uu qoray sidii ku dagay markuu ku dagay ilaa markii ninkii jaamacadii iska tagay xaafadii markuu u tagay jaamacadii uu ka soo baxay xaafadii markuu tagay gabadhii soo wacday waxay dhahday hebel soo ma ahan waa heblaayo oo hadaa runtii gaariga isku baranaysaan waa ka numbarkeeda safe garayso hadda kadibna meesha iskala soconaynaa waayo dhahay wiilkii gabadhii oo Facebook ka bartanay si uu la socdaa gabadha hadda uu bartanay way isfahmeen ayagana way isla socdaan ilaa markii marka wiilkii ilaa markii gabadhii kalena labadaba isku waday oo runtii macnaha inkastoo asiga uu aad u jeclaa gabadhii Facebook uu ka baranayo runtii aad isku fahmeen xabadan kalena kulay iyada macnaha dhankeeda rabitaan jiray laakiin asiga rabitaan zaa'ida muusan u qabin xogaa qofta uu ka yara da'weyneed sidaan filaayo sidoo asiga ii sheegay marka ilaa markii marka sheekadooda maalin kasii dambeysay way sii yara kordhaysay markii dambe gabadhii Facebook ka bartay ayaa maalmaha kamid ah waxay ku tiri walaalow waxaan rabaa maanta waalidkayga inaan ku bara camal maadaama runtii anaga muddo badan wada soconay marka inaan waalidkayga ku bara wax walba iska dhici karo wiilkii ilaa markii asiga xoogaa iska yara mashquulsanaa maalintii ugu horreysay wuxuu dhahay may hadda kulli jaanis ma yar hayo laakiin dhib ma lahan oo jaanis markaa helo insha allah waalidku waa baranaya waayaho ayay macnaha ku tiri gabadhii way ka yara aqbashay marka dambe maalin kale haddana kusoo yara celisay waxay ku tiri walaalow waxaan rabaa waalidkayga inaan ku baro wiilkii ilaa marka hore ka diiday moogta markaan labaad xoogaa racayb waayo wuxuu isdhahay niyow gabadha ka yara aqbal ilaa markii marka wiilkii wuu ka yara aqbalay maalmaha kamid ah magaalada ayaa lagu bilamiyay xaafadii laguma balin meel adiga dadka isku yimaadaan runtii cafeteria ah ayaa lagu bilamiyay meesha macnaha gabadhii iyo hooyadeed meesha ay imaadeen ilaa markii wiilkii meeshana macnaha waa meel runtii aad u weyn oo runtii macnaha qofka markuu geeska ka soo galo geeska kale uu ku arkaa inta dadka joogo ilaa markii wiilkii marka waxba hadalka idinku dheereenna wiilkii markuu geeska ka soo galay indhihiisa ugu waxay qabteen gabadhii oo macnaha Facebook ka bartay indhashada laakiin maalintaas gabadha indhashada maysan soo qaadanin maamadana sidoo kale indhashada maysan soo qaadan waayo inta badan dumarka qaar markay meelo qaar aadayaan qaar indhashada kuwa qaataan qaarna maysan qaataan waayo labadan qof hore way isku arkeen oo runtii maanta dad isku cusub ma ahan laakiin maamada iyo waxa isku cusub iyo wiilka inkastoo ayaga aysan isku cusbeen laakiin gabadha markay xaggeeda loo fiiriyo way isku cusub yihiin laakiin wiilka iskuma cusbo sidaan filay marka dambe ilaa markii wiilkii markuu arkay indhihiisa waxay qabteen gabadhii ay qabteen marka labaadna qofta kale la socoto maamada ayuu fiiriyay waxa arkay qof uu yaqaan inay tahay wiilkii uu kala fiiriyay wishka ku yeeray
wiishka ku yeeray wiilku wuu yaabay dad uu kala jiray markuu kala jiray xaafadda soo aaday xaafadda markuu soo aaday gabadhii soo wacday war hebla maxaa kugu dhacay oo waan ku sugaynaa maxaa kugu dhacay sorry baby iga raali noqo xoogaa xaafadii ayaa laga soo wacay dib ayaa xaafadii ka dhacay marka wax xumahay maanta waa ku imaan waayay ilaa markii gabadhii way ka aqbashay maadaama dhibka xaafadda ka dhacay uu tayada uu ka weynaa sidii ayay gabadhii ku sabartay wiilkii wiishka ku yeeray oo uu yaabay gabadhii uu la sheekaysanayay iyo qoftaankii markii dambe kale wiilkii muddo badan ayuu runtii yara fikirayay waayo gabadhan iyo labadan qof u shukaansado waxa isku keenay ilaa marka dambe wuxuu sameeyay gabadhii ayuu wareystay wuxuu dhahay ka waran qofta hooyada ka waran xaaladeeda iyo magaceedii iyo adii hooyada iyo warbixinteeda uu gabadha u ka helay marka wiilku wuu yara fahmay gabadhan waxay u tahay isla gabadhii uu shukaansanay wuu fahmay ilaa marka gabadhii maalmaha kamid ah wiilkii ay kulmeen waxay ku kulmeen adiga meel kamid ah magaalada ku kulmeen ilaa markii laba qof oo runtii wax iskala wada dhaxeeyo runtii macnaha isu shukaansado waa dareemi kartaa oo wax walba way wadaagaan marka ilaa markii maalmaha kamid ah marka gabadhii waxay soo qabatay taleefankii wiilka ay soo qabatay ilaa moogta sheeko waxa waa iska qarxaysaa moogta ilaan wax sida loo qariyo markii dambena banaanka iska yimaadaan ilaa markii gabadhii taleefanka sida u farfareenaysay oo runtii macnaha u galgalaysa meel walba macnaha u taataabanaysay ilaa markii number ay aragtay markaas numberka markay aragtay gabadha wiishka ayaa ku yaal markay aragtay way weydiisay macnaha numberkan ka war ma taqaana ama numberkee camal wuu fiiriyey numberkii markuu arkay xarfaankiina ma ogtahay maruu wuxuu rabay inuu sheekada waxa uu la kulmay inuu ka dhaadhicay gabadha haddana wuxuu sameeyay inuu sheekada hadda u sheegtid ama gabadhan uu ku weydaa ma fahantay ilaa markii gabadhii marka meelo kale sii taabatay waxay gashay WhatsApp-ka gashay waxay isdhaahday WhatsApp-ka numberka maadaama uu hayo WhatsApp-ka maxaa ku kala dhaxmaray WhatsApp-ka gashay sheeko waxa meesha ka socoto aan caadi ahayn runtii haddaad aragto aad yaabaysid gabadhii horta wax ay sheegto iyo wax kale way kala garan weyday meesha ay joogto xitaa waxa waaye waa laga dareemay ilaan qof ma ogtaa waxyaabo runtii fajac markii aad la kulanto xoogaa xataa dareenkaadu wuu tegaya adiga waxaa noqonaysaa qof runtii iska maqmaqan oo runtii meel kale joogo ilaa markii gabadhii markay aragtay way yaabtay subxaanallah ayaa dhahday way cudubilaysatay marka dambe waxay dhahday walaalow nambarkan yaabaa camal هذا ويلكن وكير العود دمعي marka waxay dhahay gabadhii waxay ku tiri walaalow numberkan waa taqaanaa ii sheeg markaas wuxuu dhahay numberkan waa hebel la dhahaa heblaaya la dhahaa waa ka waxay dhahday heblaaya isku baratay ani hooyaday waa adi wiilkii kadib qasadii uga sheekeeyay sida isku barteen gabadhii ilaa markii way xanaaqday waayo wiil ay runtii rabtay inay mustaqbalka la wadaagto ay runtii aad u jecleed oo runtii rabtay waalidkeed inay barato macnaha inay barto rabtay ayaa wuxuu sheekadii ku noqotay arrin fajicisa gabadhii way xanaaqday ilaa markii maalintii sidii ayay ku soo kala tageen gabadhii iyadoo runtii aad u xanaaqsan runtii qoftii ay ku aragtane waa qof hooyadeed ilaan qof hooyadiisa ama dhihi karo maanta maxaad waxaas u samaysay ama la xisaabtami karo ma jirto gabadhii runtii maanta qof kale haddii ahaaleed waxbay dhihi lahayd waxay dhihi lahayd qoftaas ama aniga ii soo gal ayay dhihi lahayd laakiin mar haddii hooyo meesha ay soo gashay xoogaa meesha waxay noqotay sheeko arrin fajicisa ah ilaa markii gabadhii waxay samaysay blog ayay iska saartay nambarkiisu iska tuurtay waxay dhahday haddaad qof muslim tahay walaalo aan isnabadgelino gabadhii ilaa markii sidii blog ku saartay maamadii yaa soo hartay maamadii kulley sheekadii iyadan way maqashay ilaan mar haddii ninkan gabadheedana uu shukaansaday iyadana uu shukaansaday kulley waa dareemi kartaanoo sheekadaas ma sii soconayso marka dambe wiilkii waxaa ku dhacday qisada ku dhacday waxay taa ugu sii yaab badneed waxa waaye gabadhiina wuu waayey maamadiina way ku gacan seertay wiilku waa la qabtay saaxiib waxa waaye banaanka loo tuuray ma fahamtay hadda meel cid loo taagaya ma fahamtay runtii waxaa ilaahay ugu rajeynaya mid kaloo qayraysan oo ilaahay u sahlo ma fahamtay marka wallahi sheekada maanta idinla wadaagaya waxay sheekadaasi ahayd war runtii wallahi sheeko runtii aad iga yaabisay oo runtii xaqiiq ee tahayna wax sheeko run ah oo qof saaxiibka qof aqaan ay ku dhacday ma fahamtay marka wallahi mararka qaar aniga isma dheheynin waxyaabahaas oo kale la kulmaysa laakiin maanta waa la kulmay waayo marar badan waa arki jiray sheekooyin waxaas laga sheekeynayo
ama riwaayado lagu sameynayo waa arki jiray laakiin hadda si qof dhab ah ee ku dhacday sheekadan ayaan la kulmay igana sheekeeyey marka wallahi sheekadaas idinla wadaagayay runtii asxaabta waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin sida wacanaa runtii barnaamijkan runtii aad u daawateen inta like saartay inta subscribe saartay kanaalka aadan ugu mahadcelinayaa runtii intaan barnaamijka soo gabagabeynin waxaan rabaa inaan idinla wadaago meesha quruxda badan leh ee maanta videoga aan ku duubayo inaan macnaha idinla wadaago runtii waa meel runtii iska garoon ah oo runtii qaybna baakin ay iska tahay oo macnaha loo soo dalxiiso markii weekendiga inta badan la yimaado marka wallahi waa meel aad u qurux badan geedahan dhirtaan u jeedaan aad u quruxda badan ayaa meeshaan ku taalo waa runtii waa geedo runtii aad u dhaadheer bismillaah kullee waa meel aad u qurux badan marka inaan nala daawataan qaybna waa qayb runtii garoon ah oo runtii ay naadi xaafadan ka dhisan ay ku almiiteyso marka wallahi runtii waa meel runtii aad u qurux badan oo runtii macnaha qaybna waxaa waaye shirkadaha ku yaallo oo runtii macnaha ganacsiyo ah runtii macnaha waxaa waaye waa meel aad u qurux badan oo maasha allah ah qaybna waxaa waaye dhalinyaro ayaaba iskaaga baashaalayso mararka qaarkii kubad meesha la iska keensado oo kubad lagu ciyaaro marka wallahi meel aad u qurux badan kulley ka waran inaad idinka jeclaysateen ayaan u maleynayaa kulley ani ahaan aadan ugu helo meeshan mar walba kulley waan iska jeclaa inaan iska imaado waayo runtii waa meel runtii markaa imaatid runtii aad dareemaysid jawi nabdoon aad dareemaysid oo aad u degan marka waa meel aad iyo aad u macaan marka wallahi waa runtii ma sha Allah videoga inaad ka hesheen u maleynaya asxaabta barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka halkaad kala socoteen waa Talyaani Media Production asxaabta waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan haween wanaagsan inta haween u tahay asxaabta waxaan u sheegayaa inta macnaha kanaalka ku cusub inay macnaha like saaraan subscribe saaraan share aad ku qabataan asxaabtiina aad gaarsiisaan si macnaha asxaabtiinana ayagana subscribe u saaraan ayagana ay ugu faa'iideystaan video waayo wax walba dhaco waxa waaye halkan ayaad kala socon doontaan annagana kulli dhiirigelin ayay noo tahay inaad macnaha subscribe ay noo saartaan waxaana ka sii helaynaa dhiirigelin aad u fara badan videoyaal badanna waa soo gelinaynaa marka waa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaftankii iyo madadaalada aad kala ka daawanayseen kanaalka Talyaani Media Production dhanka kaamirada waxaa runtii iga saaciiday oo juhdi badan geliyay saaxiibkay mahad runtii aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay nabad